deegaanka Farmaajo oo qiyaastii 6 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Beledweyne isla markaana la dajiyay mid kamid ah maleeshiyaadkii ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan galbeedka gobolka Hiiraan ayaa waxa maanta kormeeray guddiga amniga gobolka Hiiraan xubno ka tirsan maamulka gobolka iyo taliyaha ciidanka booliska degmada Beledweyne waxaan sheegaa in gobolka mas'uuliyiinta ka timid iyo odayaalka annaga magaalada shalay ay noo imaadeen si aan nabadgelyada u qaadanay xabad joojinta diyaar baan u nahay waxaan ahay odayaasha kamid ah beesha jajeelaha annaga iyo waxaas beesha jajeelaha beesha gaaljalka isdiray waxa dhaxaad noogu yimid ummadda reer Hiiraanka ah oo walaalahayna dhaxaad noogu yimid iyo reer Jabuuti oo hil walaal ah waana kala soo xabad joojin baa la sameeyay xabad joojintii la sameeyay qolaba rug baa loo calaamadeeyay meesha noola calaamadeeyay beesha jajeelaha waxa way majabaalay ku badan ku yihiin ilaahay loo ka marqaati inta loo soo dirayna waa ka marqaati taliyaha ciidamada booliska ee degmada Beledweyne Korneyl Cali Dhuux Cabdi Mahadalla ayaa sheegay wax garadka labada dhinac looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada isla markaana ay xoojiyaan xabad joojinta waxaan marqaati cad ka nahay inay saakiin beesha jajeela meeshii loogu talagalay ku dhameystiranta sidoo kale odayaasha waxaan ka codsanaynaa aaggu waa ballaaran yahay tan iyo buqmator iyo tan iyo meesha aan joogno ayaa aaggu oo yahay sida aan qiyaasayo meel kaleba waxaan beesha jajeela ka codsanaynaa meel kasta oo fal dagaal ka socdo sidii meel aan tuunsanahay oo aan wali gaarin in ay ciidankooda la xiriiraan oo ay dagaalka dib uga bixiyaan saakay sidaas oo kale waxaan noo ballan qaaday beesha gaaljecel ayaguna ciidankoodii meesha way ka saareen barta ay tageen guddi baa loo diray waa la soo kormeerayaa gogoshii wada hadalkuna birita ayay furmaysaa insha Allahul Kariim halkaas ayaa waxa ka dhici doona heshiis walaaltinimo oo nuxur leh oo dadku ku heshiiyaan inta ka horeysa waxaan leeyahay ayagana mahad celinaya oo waxay mudan yihiin oo garanayno u sheegayna ciidankii shalaytan nala socday ee Amisom oo reer Jabuuti oo xaqiiqdii amnigan inuu yimaado kaalin buuran ka qaatay afayeenka guddiga amniga gobolka Hiiraan Axmed Cabdulla Weheliye Waaweyne ayaa sheegay kormeerkan uu yahay mid loogu kuurgalaya in la hubiyo in maleeshiyaadka labada dhinac ay ku sugan yihiin goobihii loogu talagalay waxaan maantay bilownay maalintii ugu horeysay shalay markii ciidamada la soo kala qaaday waxaan tagnay maantay goobihii ciidamada loo soo raray meesha la yiraahdo Farmaajo waxaan ugu tagnay ciidamadii loogu talagalay ee beesha jajeele meelahay ku sugnaayeen wax dhibaato ah oo ka jirayna male goobihii shalay lagu dagaalamay oo shalay ciidanka xoogga dalka iyo Amisom ciidamada hil walaal ay soo kala qaadeen wax ilaahay abuurto dhibaato ah oo ka jiray male kormeeraan ku soo sameynay kormeerkaasuna wuxuu noqon doonaa mid joogta oo maalin walba aan sameynayno cid allaala cidii qori wadata oo soonaas ugu tagnana waxa guddiga amniga iyo ciidamada hil walaal ee reer Jabuuti iyo Amisom iyo maamulka gobolka waxay go'aansadeen inay ay sameeyaan kormeer joogta cid alla cidii lagu arko ayadoo qoray meesha ku wadatana talaabo sharciya laga qaadi doono alxamdulillah maanta intaan soo marnay wax qoray oo kuma arag laakiin waxaan ugu tagnay ciidan waliba bartii loo cayimay inay joogaan wax dhibaato ah oo ka jirana ma jirin ciidan waliba hadda barta aan ka nimido ugu dambeysay oo Farmaajo ciidankii jajeele loogu talagalay bartiisa ay joogeen idaacadaha waa ka arki doontaan telefishinada waa ka arki doontaan wax dhibaato ah oo ka jirayna maanta ma jiraan alxamdulillah maanta hawshu waa degan tahay waxaan rajaynaynaa inay sidaa ku sii socon doonto madaxdiisa waxaan ballan qaadaynaa inaan nabadgelyada ka shaqeyno annagu hadda waxaan noola soo diray inaan soo xaqiijino ciidamadii jajeele inay difaac ay ka soo baxeen meeshii lagu diray ay soo baxeen wixii marqaati furo adduunkana marqaati furayo laakiin waxaan ballan qaadnay inaan soo fiirino goobtii waana soo fiirinay ciidamadina waa kuwan saxaafadda marqaati ay ka haato adduunkana marqaati waxaan ballan qaadaynaa reer jaalo waxaan ballan qaadaynaa reer gaaljecel inay saxaafadda soo dhayn annaga ballan qaadayna hadday ballanta ka baxaan ummadda islaamka iyo reer Hiiraan iyo beesha caalamka arkayso Maxamed Cabdi Sanay telefishinka caalamiga ee Bulsho Beledweyne.